asalaamu calaykum daawadayaal kuna soo dhawaada wararka dhamaalka wararka qodobada warkeena aad ku daawan doontaana waxaa kamid noqonaya wadahadalada tooska ah ee madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo muuse biixi oo si toosa kaga furmaya magaalada xarunta dalka jabuuti. waxaan idiin soo gudbin doonaa warka kasoo baxay xukuumadda somalilan. waxaa kasoo baxay baaristii dhinaca amniga ay sameynayeen hay-adaha sirdoonka soomaaliya. imise boqolkii ayay shabaab ku leeyihiin howlwadeenada dowladda. halkan ayaan idinkugu soo gudbin doonaa. ra-iisul wasaare xamse cabdi bare safar ayuu ugu ambabaxaya mid kamid a dalalka saameynta ku leh siyaasada guud ee soomaaliya xili culays siyaasadeed ay xildhibaano saareen ra-iisul wasaaraha. maxaa ka jira in kaba ku tukado uu ku dhaawacmay dagaal ka dhacay deegaano ka tirsan koonfurta soomaaliya. faahfaahin ayaan idinkaga haynaa warka kasoo baxay taliska militariga soomaaliya. madaxweyne siciid cabdulaahi danina waxa uu kusii jeedaa xarunta dalka itoobiya addis ababa kulamada uu la qaadanayo ra-iisul wasaaraha dalkaasi. kacdoon siyaasadeed oo ka dhana xukuumadda muuse biixi oo maanta hogaanka ay u qabanayaan faysal cali waraabe iyo cabdiraxmaan ciro. inta daawateen waa qodobada wararkeena daawada kusoo dhow wararkaasi wararka dhammaystiran subscribe saara janalka sidoo kale follow gare oo share gare pagekana waa ku mahadsan tahay daawashada ee la socodka wararkeena. ana ku bilowna wadahadalada tooska ah ee madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi iyo madaxweynaha dowladda dhexe ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa si rasmiya kaga furmaya xarunta dalka jabuuti iyadoo wadahadalada ay goobjoog yihiin qaar kamid a wakiilada beesha caalamka sida turkiga, norway iyo sidoo kale qaar kamid a dalalka kale ee xulufada la. waxaa sidoo kale qeyb ka ah oo jooga madaxweynaha dalka jabuuti mudane ismaaciil cumar gelle ayaa maanta waxa uu qaadaya 2 tillaabo oo kale ah in gabadhiisa uu ku wareejiyo dowladda federaalka soomaaliya maadaama ay noqotay xaaska saadiq cumar xasan saadiq john oo ahaa sarkaalkii hor istaagay muddo kororsigii madaxweynihii hore ee soomaaliya islamarkaana horseeday in mucaarad hubaysani ay dalka doorasho ka qabtaan. sidoo kalena waxa uu qaadayaa in uu martigeliyo wadahadalada tooska ah ee daafurka u noqonaya wadaxaajoodyada somalilan iyo sidoo kale dowladda federaalka kuna haddana sidii mar un loo gaari lahaa xal waara. madaxweynaha somalilan xafiiskiisa waxaa xaqiijiyey in uu ku sugnaan doono muddo maalmo kooban magaalada xarunta dalka jabuuti iyadoo ay wada kulmayaan mas-uuliyiin kala duwan oo ku sugan dalkaasi. inkastoo si rasmiya war-saxaafadeedka villa hargeysa ama villada looga arrimayo somalilan aan si rasmiya loogu xaqiijinin, haddana xogta muujinaysa in wafdiga somalilan ay tegayaan dalka jabuuti ayaa si toosa kaga turjumaysa wadahadalada labada dhinac ee si toosa u furmaya. sida uu xaqiijiyey wakiilada kala duwan ee dalalka caalamka ayaa cadaadis saaraya labada dhinac islamarkaana waxay ku riixayaan in si toosa loo galo wadahadaladan waxaa dabada ka riixaya norway iyo sidoo kale turkiga oo u arkay in danahooda siyaasadeed ay ku dhex jiraan in labada dhinac wadahadal ay furaan si loo fududeeyo maalgashiga iyo sidoo kale dhaqdhaqaaqyada kala duwan ee la doonayo in laga hirgeliyo deegaanada somalilan ee koonfurta intaba. turkiga ayaa dabada ka riixaya sidii uu heli lahaa saldhig ciidan oo ku yeesho gobolada waqooyi gaar ahaan aagga hargeysa iyo sidoo kale berbera, iyadoo taas bedelkeeda la tababarayo ciidamada somalilan. sidoo kalena waxay doonayaan arrintaasi loo maro wadada wadahadalada labada dhinac ay ku jiraan iyo sidii loo gaari lahaa yoolka fog ee higsiga labada dhinac. madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo muuse biixi ayaana la filayaa in ay si toos ah u furaan wadahadaladooda. ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa waxa ay kusii jeedaan mid kamid a dalalka saameynta badan ku leh soomaaliya iyadoo ay si soo tarayaan culaysaadka siyaasadeed ee saaran xukuumadda. ra-iisul wasaare xamse cabdi bare ayaa safar ku tegaya magaalada kambala ee xarunta dalka uganda, halkaas uu kula kulmayo madaxweynaha dalkaasi yoweri museveni iyo madaxda dowladiisa oo ay ka wada hadlayaan arrimaha iskaashiga labada dhinac iyo sidii sare loogu qaadi lahaa iskaashiga guud ee ka dhexeeya labada dowladood. waxaa sidoo kale la filayaa in ra-iisul wasaare xamse cabdi bare socdaalkiisa uu weexiyo dhinaca magaalada nairobi maadaama maalmihii lasoo dhaafay culays ballaaran uu ka jiray dhinacaasi islamarkaana loo baahan yahay in dib loo cusbooneysiiyo heshiisyadii iyo wadaxaajoodyadii labada dowladood ee ku aadanaa ilaalinta darisnimada, sare u qaadida xiriirka bulsho iyo midka diblomaasiyadeed ee ka dhexeeya labadan dowladood ee soomaaliya iyo kenya oo ka tirsan bariga afrika. ra-iisul wasaare xamse cabdi bare ayaa arrintaani waxa uu doonayaa in uu bilaabo safaradiisa waqti
la qorsheynayo in uu sidoo kale socdaal uu ku tago dalka isku taga Imaaraadka Carabta oo asna ka mid ah saaxiibada caalamka oo asna casuumaad ay u taalo xafiiskiisa islamarkaana loo soo diray. Maxaa ka soo baxay baaristii ay sameynayeen hay'adaha sirdoonka Soomaaliya mise boqolkii ayaysan shabaab shaqaalaha dowladda ay ku leeyihiin iyo madaxda dowladda federaalka. Xog la helaya ayaa muujinaysa in baarista hay'adda sirdoonka Soomaaliya aynan soo saari doonin natiijada rasmiga maadaama qaar badan oo ka mid ah howlwadeennada sare ee dowladda federaalka ay xiriir la leeyihiin kooxdan dagaalka ay kula jirto dowladda dhexe islamarkaana 15 sano ee lasoo dhaafay ku dhex milantay guud ahaanba nolosha bulshada Soomaaliyeed. Waxaana la aaminsan yahay in 5 sano ee lasoo dhaafay ay jireen saraakiil sarsare oo kooxdu ay leedahay kuwaas oo ka dhex muuqday guud ahaan hay'adaha dowladda federaalka. Waxaa isku dhex milmay jimhadaha amniyeedka iyo sidoo kale hay'adaha amniga ee dowladda federaalka, shaqaalaha iyo howlwadeennada waxaha canshuuraha ee kooxdaasi iyo kuwa sakooyinka aruuriyantaba, iyadoo la xaqiijiyay in 30% ay sii marayso wadarta guud ee ay ku leeyihiin hay'adaha ammaanka iyo sidoo kale shaqaalaha dowladda. Goobaha ugu muhiimsan howlwadeennada ka shaqeeya ayay qiyaasayaan khubaradu in 15% ka badan ay ku leeyihiin halka ciidanka Muqdisho ka howlgalaya hay'adaha ammaankana ay ku leeyihiin in ka badan 15% sidoo kale. Waxaana arrintaasi ay u muujinaysaa in aynan dhoweyn laga gungaaro guud ahaanba xaqiijinta nabadgelyada, ka hortagidda isku dayada kala duwan ee lagu beegsanayo goobaha muhiimka u ah dowladda federaalka. Maxaa ka jira in dhaawac uu soo gaaray madaxii gobolka Shabeellaha Dhexe shabaab Yuusuf Kaba ku tukaday xog laga helayo militariga Soomaaliya ee la wareegay aaga gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa xaqiijinaya in dhaawac uu soo gaaray horjoogahan hogaaminayay dagaaladii maalmihii lasoo dhaafay ay ku difaacayeen degmada Aadan iyo Baale ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Waxaana ay militariga Soomaaliya ay xaqiijiyeen in loola cararay qaar ka mid ah deegaanada fog ee gobolka Shabeellaha Dhexe ee xiga aaga Galgaduud, iyadoo weliba la aaminsan yahay in dhaawiciisu uu yahay mid aan si rasmi ah weli loo xaqiijinin xaaladda dhabta ah ee uu ku sugan yahay. Saraakiil ka tirsan ciidanka sirdoonka Soomaaliya ee militariga la shaqeeya ayaa sheegay inay hayaan xogta dhabta ah ee muujinaysa in hogaamiyihii dagaalkaasi uu meesha ka baxay, kadibna ay sida ugu suurto gashay ciidamada inay si nabad ah ay kula wareegaan degmada Aadan iyo Baale ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Militariga Soomaaliya ayaa sheegay inay sii wadi doonaan dadaaladooda ay ku xaqiijinayaan nabadgelyada kulana wareegayaan deegaano horle oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe iyo guud ahaan aaga gobolka Galgaduud oo asaguna ay usii gudbi doonaan islamarkaana ay doonayaan inay gacanta ku dhigaan. Waxaa la sugaaba waa aaga dowladda federaalku ay ku xijiso la wareegistiisa degmada Aadan iyo Baale, mar haddii ay sidoo kale sheegtay in ay khasaare gaarsiisay hogaankii sarsare ee ciidamadii difaacayay deegaanada gobolkaasi. Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni iyo wafdi sare uu hogaaminayo ayaa waxaa looga yeeray magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Itoobiya kadib markii ay guuldareysteen wadahadaladii u dhexeeyay dowladda federaalka iyo Puntland kuna aadanaa in la qaado dhaqdhaqaaqyada kala duwan ee siyaasadeed ee kasoo horjeeda Siciid Deni iyo sidoo kale hogaamiyaha Koonfur Galbeed intaba ayuu si toos u gaaraya magaalada Addis Ababa iyadoo socdaalkiisa aan la shaacin doonin islamarkaana sida la xaqiijiyay saacadaha soo aadan uu si toos ah Siciid Deni kaga degayo magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya, halkaas oo uu kula kulmayo ra-iisul wasaare Dr. Abiy Ahmed iyo mas-uuliyiin ka tirsan deegaanka Soomaalida sida madaxweyne Mustafa Cagjar, wasiirka arrimaha dibadda, wasiirka hore ee maaliyadda iyo xubno kala duwan oo ka tirsan dowladda Itoobiya. Qorshaha ugu muhiimsan ee Siciid Cabdullaahi Deni ayaa ah in uu garab siyaasadeed u helo dhaqdhaqaaqyada uu ka wada deegaankiisa sida hirgelinta doorashada, muddo kororsiga uu ku haminayo, maalgashiga uu doonayo in dekedda magaalada Garaacad ee gobolka Mudug ay si dhab ah u howlgasho islamarkaana loo helo wadooyinkii la marsiin lahaa agabyada kala duwan ee kasoo degaya dekeddaasi si toosana ay ugu xirmayso Itoobiya. Waxaa la filayaa labada dhinac inay wada gaaraan heshiis dhab ah oo ku aadan mashaariicda horumarineed lagu dhisayo dekedda Hobyo, wadada ku xireysa dalka Itoobiya, iyadoo weliba ay goobjoog noqonayaan wasiirka horumarinta, wasiirka maaliyadda iyo sidoo kale amniga oo ayagana ay iska xog wareysan doonaan xaaladda guud ee ka jirta deegaanada deegaanada Puntland
iyo sidoo kale dowladda federaalk ee xiriirkeeda. Dani ayaa dowladda Itoobiya ka codsanaya inay xoojiso xiriirka kala dhexeeya maadaama uu wajahayo culays siyaasadeed oo adag. Ugu dambeyntiina Faysal Cali Waraabe iyo Cabdiraxmaan Ciro ayaa dhaqaajinaya dadaalo ay kaga soo horjeedaan xukuumadda Muuse Biixi iyo wadahadalada ay la furtay dowladda federaalk Soomaaliya. Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi markii la ogaaday inuu tagay dalka Jabuuti si toosan ay u kulmayaan Xasan Sheekh Maxamuud ayay bilaabeen hogaanka mucaaradka dhaqdhaqaaq siyaasadeed oo ay kaga soo horjeedaan xukuumadda Muuse iyagoo ku dhawaaqay kacdoon ay bulshadu ku difaacayaan madax banaanidooda iyo jiritaankooda mar haddii Muuse uu isku darsaday laba arrimood inuu la kulmo Xasan Sheekh iyo sidoo kale inuu kursiga uu ku dhago oo doorashada uu meesha ka saaro. Arrintaas ayaana si weyn looga dareemaya guud ahaan Somaliland inkastoo xukuumaddu ay ku dhawaaqdeen mucaaradku ay yihiin qaswadayaal. guud ahaan daawadaynta socodka ku dhan warka kaga meena dhabaalka wararka daawadaan ugu cusub subscribe saar channelka sidoo kale follow gareeyo share gareeyo page-kana waa ku mahadsantahay daawashada iyo la socodka wararkeena nabadgeliyo.